ninka xasan cali maxamuud Seylaan baa la yiraahdaa hotel heer Seylaan weeyaan walaalkii waan u tagay imaka waa dhaweed ma garanaysaa uu guursaday ninkii bii horta waa guursaday ninkii wuu guursaday waliba iska daa guurkaas oo laga Kenyadan ku qaba yabatu ku qaba ninkan uu guur badan yahay sabaga intuu qaba ma in kale waxa ka sii daran uu habla yaro uu iska sii guursanayaba waliga ma weydiisay maxaa ka damacsaneed adoo waxas qabo maxaa iga soo doontaani maxaa rabtay معوستي waxa markuu iska labisa caatoon bina kila noqday inakii deemka dhar nin fiican aha ma ogtahay yani markii hore waa qof labisnaa oo magaal ku jiray sidoo ahaa iyo markii gudaha yani isla gasheen yani different ku kula noqday different ha marka inta abaaka markaan saa u furan u soo galayba ee saa isha ugu dhuftay waan ka joogsaday markaan buu dhimaad iga naxday markaan ku firi maxaa odhani waqti waxaan sameeyaan garan waayo saamay baan waxba ma jiraan baan iri المهم halkii markaa ku jirnay arinta waa iga raali noqdo way dheeraatee ayaa maxay heeday aduu week kolba waxaan dareemaa daal baan dareemaa markaan baa maxay heeday walaaliyay igu ma jiro markaa qaadii waxaan u keeni jiray suuq markuu ay boobsiisay arooskii wada gasheen halkii habeen ma la bedelay oo waqti dheer ma laga dhigay mise uu bedelay waakii wili lacag yar ma sugayaay maxay aday ma garanaysaa marka meequu ka dhigay wuxuu yiri week baan ka dhigayaa week dabana ku dari marka lacag yar baa meel ka sugayaay marka 2 usbuuc ka dhigay 14 days meesh ku jirteen marka todobadii gasheen waa dhameysteen waa wada nooleedeen labadii waa ku darnay labadii kalena kadib todobaadkii kalena ku daray kadib marka adu intaan ku jiray ma garanaysaa maxay aday wiigiga horeysay waxa li adigu maxay aday afartii cisha uman daal culays iska dareema afar cisho wiigiiba ma garanaysaa ugu horeeyayba ma garanaysaa maxaa hablaha iyagu baa ila maxay aday ma garanaysaa inantii deeq wajigeegi uu isbedelay way daalan tahay si qof daalan bay u eg tahay si qof daalan ayay u eg tahay wajigeegi uu sir bedelay ma og tahay kule qof daal walaali iyo qof daalan si qof daalan bay tahay anigana waxay ku dhacay ma garanaysaa wiigi horeysay waxaan jirka ku saamuunaan jirka ku meerinayay buu jirkaygu diiday malaha allergy baa leedahay baan iri jirkaygu ma wada diiday marka malaha waa perfume waxaan leedahay waa iska wada tuurayba soo ba garanaysid haddana wigi ku xigay qandho yar baan ii timaada 5 galabnimo baan qandho yar dareema ma garanaysaa kuleyl yar baan dareema dhaxan yar saas kuleyl ma dhaxan bay ahayd baan dareema sidaas tiyo ay tahay baan maxay aheeday aduu 2 week markay gaadhay bay naagtiisu baa la soo hadashay soo ma garanaysid markaan buu telefoonka orday maxaa la orday baan ku yiri anuna naag leedoon garanaya iskala hadal hortayda marka afkooda ku hadlayeen af Norwegian-ka ayay ku hadlayeen sax marka buu igu yiri maxay ahaday mushkilad baa jirta oo maxaa jira marka walaalkayga halkaa jooga iyo gabadhii baa maxay ahaday ayaa isqabsanka ayaa is haysta marka waxaan doonayaa maxay ahaday ma garanayo inaan degdeg u tagiyo in kale buu igu yiri ka kun masaasa ha hadaba markaan buu yiri bal waan eegi doonaa buu igu yiri ma ogtahay way sida haday tahay marka buu intaana salaadiisa uu tagaa hada salaad kasta uu tagaa ma garanaysaa nin iska aadiya nin wuxuu iska ahaa ma garanaysaa maxay ahaday xagga diinta ku fiican buu iska ahaa marka buu igu yiri maxay 2 week dadin buu igu yiri arintii maxay xoog bay isku haystaano waa inaan tagaa si degdeg oo inaan tagaa waa khayr baan noqon baa inta maxay ahaday ma garanaysaa aad tigirkee waxaad odayso may online baba tigir ka samaysanayaba waaba ka samaystayba online waa ii jiran yahay waa gart oo maxaa saa u samaysan baan ku yiri kan buu yiri mayde waa inaan gaadha inta is qabsan marka wuxuu ka xawaalada Oslan ka shaqeynayay gabadheena bakhaar bay haysataa oo halka ka shaqeysaa ma garanaysaa ayuu igu yiri marka way is haystaan marka waa inaan arinta ka gaadho masaas aha hadaba anigu waxaan ku yiri bal waaya anigu waxaan jeclaynaa la joogto ila aqalka maxay aan tagayno aqalka aan ila hagaajisay waan ku soo laaban si degdeg aan soo laaban doonaa waayahay hadaba cishadaan la hagaajinay alaabta dhalinyar oo maxay ahaday bilaaqala oo dawo ku jirto baan ku arkaa 2 cisho ugu dambeeyay kolba meel Toyota war waa maxay dhaladani baan ku waxani ma garanaysaa qaadan baan ku rata shadada ku sii rido waxa halka yaala maxaad u cuntaa baka bigu yiri may tan waxa la soo qoray xagga dhalmahay u fiican tahay oo
ina cuntaa doonaysaa warmay inagu dhakhtar baa way tagaynaa baa ku dhalmada doonayno dhakhtar baa tagi doonaan wax ma cunayo ma daawadu ku leeyahay dhalmada u fiicantay adiga cab mise dhalma u cabaa asaa ku leh may dhalmada u fiicantay buu ku leeyahay ee iska cun adiguna adaa lagu kasoo kula adig soo laguma soo qorin aniga maxaa soo gelinaya meesha ani waa fiicanaybe ya ha ani shakis kama qabo macna de maya haddaan doonayna dhalmada ma dhakhtar baa wada tagaynaa maxaa dawooyinkan maxaa batan meesha keenay ma garanaysaa marka aniguna dee niyadeeda maa sii gelin ma og tahay siday ugu jirtay waxay ahayd maxay ma garanaysaa dusha waxba kagama qornayn saasaan eego dusha waxba kagama qornayn mashruuba ahayd mise markaniin yaa may dhala yar bay ahayd oo caagada may wax ku dhex jiray ma biyay ahaayeen mise maaban eegine caagada un baan eego akhri aan siri waxa dusha ka jiro waxba waa jeexjeexan tahay si warqadu jeexjeexan tahay ahayd waxba kama akhri waxba kama soo qaadinba sax ma garanaysaa maxay ahayd qaado baan sii qaado tanna sii qaado waayahay sidiibu maxay ku tagay anaaba airportka anaaba gaarsiiyeyba oo airportkii u raacay moogta anakay gabadhii kale shuweeriya subxaan airportka ma ka soo laabtay markaa 2 week bay ahayd ma ka soo laabtay xunqaacun baan bilaabay adiga ha isla markaa airportka saa ugeey ka soo laabtay anoo waagi lagaaluga istees maxaa tirahdeen lab isii hayo ma garanaysaa unbay tanna igu darto cishadii aan saa ugeey unbaan maxay aan soo xunqaacay garanaysaa markaa soo xunqaacay anigana dee fasaxaygu 2 wiigun buu ahaa ma ogtahay jimcihii baan geeyey sabtidii dhakhtarka ayaan u lahaa aan shaqadii aan u lahaa markaa habeen baaba lahaa cishadaa ma ogtahay aan soo laabanayey markaasaa anigoo dee wixii oo dhan igu daalkii hayay iyo wixii markaan aan ka soo laabtay airportkii aan xunqaacay baan iska seexdayba hurdo ilaa aroortii waan xunqaacayay markaan baan imikaba dhakhtarkii aan tegayaaba waaban tagay magarasa dhakhtarkii markaa shiftiga anaa waaga markaa hayay ma ogtahay subxaan allah anuu dhaxanteeradii imanaysay inay xumo tahay xataa inay qadho tahay umaan malaynayn ma ogtahay markaa un baan qaadoon is eegoo magaranaysa un baan idhi bal bahashii lagu qiyaasayay qadhada isku eegay temperatureki ha ayaa isku eegay waaba 38 baaban ahay haddana uma dareemayo waxba 38 ha 38 waa okay ya 38 okay ma waa 37 norm fiican ha waa iska day laakiin jirka waxbaa ku jira ma ogtahay waxbaa ku jira ma ogtahay markaa un baa idhi weliba waa anuu xataa ma garanaysaa masaasaa waan iska naxay subxaan allah un baa idhi markaa un baa idhi haddaba xunqaacadii lagu soo baan ku idhi habliin baan ku idhi anuu horta waan daadegayaa garanaysaa emergencygaan tegayaa waan soo eegayaa xumadana waa tan ma garanaysaa ayaamahana waa tan deeska ma garanaysaa ama taqiis ha may waa tan de ayaamahanaha maxay ma garanaysaa laakiin waxba ka shikiyeyba anigu qadhadanaba ka shikiyeyba 38kan jirkaygana ma garanayo ma garanaysaa taaba ma ka shikiyey anigu markaa isku eegay hoostaan u daadegayaa markaasaan u tegay hoostii markaasaan ayaa dee dad wada garayna caruusad ahay ma garanaysaa waatan caruusadii way timid maxaa ku haya markaasaan ku iri dee imika waxaan iska eegay baa idhi maxaa ma garanaysaa qadhadii saasay noqotay markaa dee banadoolna waan cunay ma ogtahay soo ma garaysa waan cunay ma saasa ahaa markaa anuu sidii u joogoo la hadlaya unba xunqaacay soo qabatayba halkii baan ku xunqaacay markaa unbuu yidhi bas gabadhan haddaba ma garanaysaa maxay ahaday dhiigoo dhan ha laga wada qaado kaadidana ha laga qaado ha la seexiyo gabadhan seexiyo unbuu yidhi halkaa ku rakibana maxay ahaday maxaa tirahdeen glukoos ku rakiba marka isbitaalka aad ka shaqaynaysaa joogtaa waha kii unbaa lagaa seexinaa kii unbaa hadde kii erjisiga unbaa hadde xumadii baan ka yaabay ma ogtahay xumadii ayaan idhi ayaa jiraan idhi qadhadii baan idhi maxaa jira sax markaas qadhadii baan ka yaabay idhi maxaa jira markaasaan hoosta u dhaadhacay markaasaa maxaa ahaday xunqaacadii buu ka yaabay markaasuu yidhi gabadhan ku rakiba dhigagana iga wada qaada ma ogtahay macakaadida ka qaada waa la igu rakibay anu markii aba igu dambeysayba markii sidaa la ii seexiyey la igu rakibay ma garanaysaa glukooska ayaaba igu dambeysay waxa mar dambe maa soo toosay dhakhtaradii wada dur joogoo leh maxaa kugu dhaco maxaa ku helay niish maxaa jira markaa unba igu yidhaah maxaa tahay dhiigaaga caduu dhacsan yahay ya maxaa ku dhacay kabaa ku yidhi mawji ma garanayo markaa unba igu yidhaah ma sidaas ahaa kabay idhaaheen iska seexo imika beri aroortana waxaan maxaaday u teg kuwan maxay ahaday fayruusaadkiiyo waxaa hala eego bal kuwaasaan kuu xawilaynaa calooshana maxay ahaday waxaa lagaa marini maxay ahaday suurad bal waan eegaynaa horta misag wuxuu ku yidhi calooshaan suurad kaa marinaynaa waan eegaynaa
maxay haday markaa bal mid kale yimid oo yidhi ma u dirnaa qolaydan maxay haday fayruusaadkana waan u diraynaa ha wax kasta waan u sameynaynaa unbaa la yidhi sax sidii baa habeenkii u jooga markaa ma ku yidhi anigu waxaasoo dhan waan daalanahayba daalbaba ani waqtigaa waqti daali hayay ma joogi karaye waa inii soo laabana fasaxaysiiyo unbaan idhi isma taagi karayaba anigu xaafadaan iska tegi marka waa inii soo laabana fasaxaysiiya fasax bay isiiyeen dee halkaa bay bilaabatay maqasadee kolba maxay haday xunqaacadii baa sii badanaysay haddana maxay haday jirkayga qanjiradii oo dhan baa wada barartay wada bararo saay wada bararay markaas hadda dhakhtarka la igeliyo la idhigay ma garanaysaa markii dhakhtarka la idhigay baa la yidhi maxaanu sameynaa gabadha maxay haday dhiigag badan baa ayaa layga qaaday waxaa la yidhi maxay haday meeshan ayaanu ka qaadaynaa wax yar bararkanan ka eegaynaa hadda dhakhtaradu waxay yidhaha mi waxba eegi mayna imika ma garanaysaa bal waqti ba u baahan tahay isagii baa haddaba gabadhii baa u sheegtay oo tiri gabadhii baa xanuunsanaysaa oo dhakhtarka ku jirta deeqa way xanuunsanaysaa dhakhtarka ku jirta wuu soo hadlay gabadhii abtiga asagu ahaa adna asxaabta aheedeen haa ayaa u sheegtay waayahan way xanuunsanaysaa dhakhtarkay ku jirtaa wuu ila soo hadlay haye sidee tahoo kaas ma garanayo waan ma garanaysaa waan xanuunsanayaa markaasuu yiri dawooyinka lagu siiyo on iska qaado war dawooyinkee lay siinaya unbaa ku yidhi weli dawo la ima qorine ma garanaysaa weli waxaa laygu wadaa maxay haday gulukoos waxaasaa laygu wadaa almuhim sidaasaanu ahaa 3 bilood dhakhtaradii waxa aliya waxa adduunkaa dhigag jiroo dhan laga wada qaadiyey si kasta la ii sameeyey ma garanaysaa markii hore uur bay ka shakisaayeen oo yidhaaheen malaha waa uur jirkaagu haddana waa uuru diidi karo ma garanaysaa maskaxda dee mayba in maxay haday dadkii imka guur ee maxay haday dhiigiis ka soo qaaday may soo marin bayna maxay haday waxaan kale meesha ka soo bixi doono niyadooda may gelin 3 bilood markay ahaayeen in anigu dhakhtarkii marna aan shaqo galayo marna ma garanaysaa ayay maxay haday ayuu dhakhtar yidhi wax mayni xanuunada la kala qaadaa jira dhakhtarkaasaa joogo yimidoo dhakhtar maxay haday mareykanka yimid kaasa gabadha u geenaynaa soo ma garaysid xanuunada la kala qaado kaasaan u geenaynaa ya waxay dhabal isaga maxay haday aan eegaynaa wuxuuna yidhaaho intaa kulba meel baa laygeen kolba dhakhtar baa ma garanaysaa kuwii hore markii hore haa 3 bilood 3 bilood ay qaadataba dee haa dhakhtarada markii waxay ma taabsanayno halkan laano waxay qanjiradan baray waxaan waqti bay qaadataa inuu xanuunku yahay soo baxo nuucu yahay inuu soo baxo waqti bay qaadataa marka waxba taabsani mayno 3 bilood ayaa waqti baan siinaynaa ma garanaysaa waxaan wax jirkayga galay way inaa iska soo baxo wuxuu yahay ya markaa 3 bilood markay tahay ayay maxay haday intaa hadda anu waxba ma ogina uu igu soo laabtay weliba isagu waxay rabadaan baa soo gashay bisi 8 soo 6 ismaan uu soo laabtay isagu ninkaaga haa uu ii yimid intuu ka maqnaa marka ya dee aduu eg bishii 6 markuu tegay aduu 14 magaraysaa haddana aduu bil iyo badh oo ku soo laabtay adoo cajiisan weli ya anoo weli haa laakiin markii soo yar fiicnaadoo dee biyihii wixii laysay waa soo yar fiicnaaday markuu yimid baan haddana dhulka sii galay magaraysaa oon dee xanuunkii dib haddana igu sii noqday magaraysaa oo bararkii uu igu sii barara xoog ma og tahay markaasa maxay aheeday dhakhtarkaasaa la ii geeyey anoo dee weli xanuunkii xoogiisii haya ma og tahay mushkiladdu waxa weeyaanna ma garanaysaa anigu dee anaa heerka maxay ma garanaysaa maxay masruufi jiray anaa maxay ma garanaysaa mas-uulka ahaa dee heerka hooyada iyo ma og tahay iyo walaalahay lood walaalood aabaxaas kaluu iska lahaa marka anaa maxay aqalka u qaaday anaa masruufka dhan waxoo dhan baa anaa hayay ma og tahay markaas ayaa maxay ahaday ayaa dhakhtarkaa liigaya dhakhtarkaasi wuxuu yidhi iyada kelideed baan doonayaa ya wuxuu yidhi deeqa kelideed baan doonaya dhakhtarkii maxay ahaday xanuunada la kala qaado kiyaa lagu geeyey kiiba haa wuxuu yidhi kelideed baan doonaya inaan waraysto eegooda baxa waayahay markaasuu igu yidhi ii waran haye sidee tahay waayahay markaasuu yidhi bal odayaaga iga waran ya markaasaa ku yidhi maxasen kaaga warramaa markaasuu yidhi maxaad ku aragtay wax jidhkiisa wax ma ka dareentay soo ma garanaysid aniguna waa xanuunsanaya waxba maa sheegin waxaan ka dareema maxaa waxba kamaa dareemen baan maxaa ka dareemaya jidhkii maxaa jira un baan ku idhi markaan buu igu yidhi waayahay haye ma dhiigaga inta waa lagaa wada qaaday haye carooska hortid ma isbaadheen markaasuu ku yidhi haa waan isbaadhnay un baan ku idhi soo ma garanaysid waad isbaadhay haa imikana dib ma isku baadhay waxba ismaan baadhin maxaa iska baadhin baa ku yidhi maxaa jira
markaa unbuu yidhi aduu ii meeraystay soo ma garanaysid markaasaa ku yidhi markaasuu yidhi adigana hay adima guurkaagii horaa markaasaa ku yidhi haba guurkaygii hore baa ku yidhi isagana dee waxaas buu iska leeyahay baan ku yidhi iska soo guursaday markaasuu yidhi imika xaguu joogaa de waxaan ku yidhi uu maqan yaho dee Norway ku noqday muu iman kara asagu markaasaa ku yidhi waan u sheegi markuu yimaado hakuu yimaado waana ku odhan yaa waa lagu doonaya baan ku odhani markaasuu ku yidhi markaasaa ku yidhi maxaa jira baa ku idhi soo ma garanaysid markaasuu yidhi haddaba xanuunadan waa isku wada egyihiin fayruusaadku ma og tahay markaasuu igu yidhi waxaan ka shakisanahay ma garanaysaa ayuu igu yidhi maxay ahayday xanuunkan la yidhaaho galbada lagu kala qaado ee la yidhaaho maxay ahayday HIV markaasaa yidhi yaa maxaa tiri yaa markaasuu yidhi anu kaasaan ka shakisanahay buu yidhi markaasaa kusoo taan imika isbaarnay imika dhakhtarku soo taan tegnay eenu isbaarnay bacdeen baa ku yidhi ninkaygu waa nin maxay ahayday waa kaaga shakisan markaas ma lagu baarin markuu ku wareysanayo ya de maya wuxuu waraaqihii dhiigagii laga wada qaadoo dhan wuu haystaa ayuu wada hayaa marka dhiigan anakana lagama qaadinoo de waa taan imika caruusnimadii waan iska soo wada qaadnayba taas kama wadi waqtiga ninka bakistaaniga ku wareysanayo dhiig muu kaa qaaday mise markii ugu horeyso dhakhtarka la sheekaysa dhiigagii hore oo dhan buu wada hayaa inay dhakhtar baan galay dhakhtar baan ku jiray wuxuu wada hayaa ma garanaysaa dukumentkii oo dhan buu wada hayaa faylkii oo dhan buu wada hayaa mid asaga kaa qaadi ma jiro laakiin yaa de xanuun kasta adduunka jira waa layga qaaday ilaa xanuunkaas su-aashay fahan yaa su-aasha inaa fahamtaa rabaa waxaan ku yidhi dokumentiyaashaada hore informationkaaga horuu haayaa markaas asaga dhiig ma kaa qaaday may weli de waan isla fadhinaa waa markii ugu horeysay ee consultationkii waka ahaa okay waan isla fadhinaa markaasuu yidhi anu xanuunkaasaan ka shakisanahay buu yidhi calaamadahana oo dhanna xanuunkaasaa leh ya markaasaa ku yidhi may ma garanaysaa odaygu waa nin maxaa hayday diinta yaqaana waxaas ma dhici karayaan ya hay markaasaan ku idhi markaasuu yidhi may iminka waa inaad dib maxaydaad iska baadhid dib waa inaad isku eegtiin isagana igu yar markuu yimaado way uu kuu leeyahay dib inaad isku eegtid wey hadda asoo kuma fiirin kara markaaba ya dee wuu ku fiiran karaa wixii ma garanaysaa waa inuu maxaa hayday dhiiggii ilan waan iska soo qaadno anigu waxaan wada ahayn negative baan wada ahayn markii carooskaan gelaynin warqadii wixii aduu negative ba ayaan wada ahayn haye adiga waa is ogeed asagana adiga ma ogeen sooma asaas ka soo qaaday dee isagaanu inaan horta heedhe soomaalideena inay waxaan jiraanba warka ma hayo eeg community meeshaan ku soo koray iyo eeg bulshadan ku soo koray ma garanaysaa waxaan anaku kama naqaano inay jiraan inta badan waxaan ku naqaanay dadkaa dibadaha ayaan ku naqaanay okay waxaan ku leeyahay yani ninkaaga markuu ku leeyahay inaa arkaa rabaa ama kaasaan kaaga shakisanaa dib isku soo baara markuu ku leeyahay maxaa uu kuu leeyahay isbitaal uu joogaa dhaktar waay adiga naftaada waa joogtaa lagaga shakisiya dhiigu intuu kaa qaad moo kaa fiiriyo de maya waxaan waa inuu ku yidhahaa iska qaad waa inuu qofkii ileen mar hadduu uu garanayaba baan u malaynaya anuu waxaasoo dhiigoo dhan oo wada qaadno wada negatifa okay aduu kuu qancinayaa mooga asaga waa ile waxaasoo dhan dhiigoo wada negatifaan wada hayaahe kaasunbaa hadhaye wax kale ma hadhinba intaasoo dhakhtaraan ku jira wax alle wax la sameyni wax kasta waa la sameeyey kanna waa laga shakisanyo waxaa le gabadhii dadka imika dhiigabays ka soo qaadeen oo waa caroos soo ma garanaysid marka maxaa dee haye soo ma garanaysid marka wuxuu ku yidhi baalkaasaan kaaga shakisanahay inaad dib isku baartiinaa rabaa soo ma garanaysid maxaa tiri marka an waxaan ku idhi ma noqonaysaan ku idhi oday maxaa yaday waa nin diin leh waxaasaan ku ka imanayaaba ma garanaysaa markaas waxaaba anigaba dee shikiba ay galo markaasaan kutubtii oo dhan wixii oo dhan baan wada akhriyey oo dib aanu wada noqday leanna qofka ka shaqaynaya shardi maa inuu waxaan ilen dadkan anigu maxaa yaday xanuunkan qabal haddii jeer ma aragna ma og tahay ma naqaano ani inaan baaritaan bilaabay noqotay aniga nafteeda basaan isku qanciyo oon dib kutubtii oon lagu laabto oon kutubtii maxaa yaday ardaydii wax dhiganaysa aan weydiiyo oo kolba qol aan la galo kutubtii oo shaqada ka baxo oon dib u eego oo sariirteedii o dhan aan kutubtii ka wada dhigo internetka aan baadho oo waan yaabanahayba dhakhtarkii maxaa ku kala tegaysiin marka ya wuxuu yidhi ii keensagu markuu yimaado waa kasoo tagtay ashada waa mar xanuunsanayey xaafadii baa tegay laakiin aniga shikigaas ayaan qalbiga ku hayaa anu marka hore waxaan islahaa waa xanuunka beer ku noqon wax kaluu noqon ma og tahay laakiin xanuunka markuu igu yimid niyadayduba waba si kale bay noqotayba ma garanaysaa waxaaban galay inaan maxaa ahayday calaamadahan
iga soo baxay waxyaalahan aan dareemo dhan inaan raadiyo ma garanaysaa oon ka daba taga aniguna kutubtay oon ku qanci waayaba dhakhtarku wuxuu leeyahayba markaasaan saan u raadinayay baan maxay ma garanaysaa isagana u fiirsadii maskaxdeeda way ka baxdayba ma garanaysaa anigunbaa islamay noqon kartaa oo see u noqoni yaa anaaba dib isku ma garanaysaa maxay isku su-aalay ma noqonayso waxa ma noqonayso markaa maxaan sameeyey adigu markaasuu bilaabay markuu gartay inuu dhakhtargan wax ayuu doonay inuu baxsaduu doonay markaasuu bilaabay inuu arrintiiba halkaa ku jaro ma u sheegtay marka yaa anuu waa dhakhtarkii baa ku doonayaan ku idhi dhakhtarkii wuxuu yidhi ii kaalaya okay marka waxaan rabaa sida u sheegtay iyo inaad si degan u ogaadaa rabaa dhakhtarkiyaa kasoo tagtay adiga naftaa shakiyaa ku galay waxbaad research waxbaa samaynaysaa ninkiyaa wacday maxaa ku tiri marka yaa waxaan ku idhi waxa maxay dhakhtarku wuxuu yidhi markuu yimaado hawada maxay inaan isku raacno u tagno rabaa tiri saasuu yidhi markaasuu yidhi waan israaci doona waan eegi doonaa buu yidhi markaa hay markaa wuu maqan yahay saba garaysid markaa wuxuu bilaabay inuu dee in qisadii la fahmay iyo in ayuu isagu shakiyey ma og tahay wuu gartay laakiin anigu weli waa shaki unbaa haye anigu waxa le wuxuu yahay ma garanaya ma og tahay uma malaynayana dee maskaxdeedaba waaba kasii daayo ma noqonaysa waabaan hayaa waxaas waa wax mustaxiilaba inuu noqdoba soo ma garanaysid inama soomaalina waxaa kuma oga ninkana waa nin diin le anaa dib isku qanciyeyba waxaani ma noqon laakiin haddana waa shakisanoo dee waatan kutubtii o dhan wada akhriyeen adduunkii ma garanaysaa markuu yimid ayuu maxaa yidhi maxaan sameeyaa de wuxuu doonaya inuu maxaa ma garanaysaa uu baxsado ma og tahay wuu ii soo laabtay wuu yimid soo ma garanaysid markuu yimideen ayuu yidhi anuu imika maxaa yidhi shaqo yaroo si degdeg aan u baxayaa si degdega ayaanu imid waan u baxayaa soo ma garanaysid waan kuu soo laaban doonaa markaas qor maxaad u bixi markaasuu arrin yar baan leeyahay haddana may waan joogayaa buu yidhi ninkasi nin loo soo talinay ahayd ma og tahay yaa waan baxayaa intuu yidhi si degdeg aan ku yidhi bas waaye hoo dee dhakhtarkii wixii ma raacaysid maya waqti dambaan isku raacaynaa yaa ayuu maxay heday ayuu haddana dib u soo laabtuu yidhi may waan yar joogay aan geline waan u tegi doonaa marka intee wada joogtay markuu saas ku dhahayo cabaar ma kula joogay mise habeenkii imaadaa saas leedahay adigu maxay heday may adigu waxaa dee marka in yar uu joogay uu maxay heday 3 cisho waxa ayaan u sheegay waayahay buu yidhi arrin degdeg aan u yimid waan noqonayaa soo ma garanaysid aduu dee in yar geli markaasaan ku idhi waayahay markaasoo haddana soo laabtuu yidhi maya in yar baan joogayaa ayuu yidhi waqti yar imika ayaan joogayaa marka anugu ilaa imika wixii ma fahansaniba soo ma garanaysid weli marka nin inaagtiisa tiin oo wada nooshihiin oo wada dabaalinaysiin laakiin soo ma garanaysid laakiin isagu wuxuu bilaabay si uu qof iska yar ma garanaysaa iska digtoonaysana yacni ma garanaysaa sidii hore u furfurnaa uma furfurna soo ma garanaysid inuu isyar dee si uu isyar ilaaliyo markii horeba dee anu waxaan ka garanayay ma jirto ma og tahay yaa markaas ayuu laakiin si qof loo soo talinayay ahayd ma garanaysaa yaa usoo talinaya markii labaadoo dhehayso qof loo soo talinayo ma garanayo anu waxaan garanaya qofka imika markuu yidhaahdo imika si degdeg aan u baxayaa haddana maye waan iska joogayaa ma garanaysaa haddana wuxuuba damcayba ma garanaysaa inuu hotel gooni iska dego yaa uu yidhaa gabadhii way hinaasantahay gabadhii waan kari laayahay gabadhii saasuu bilaabay gabadhii kalaa mise adiga may aniga gabadhii waan isfahmi laanahay saasuu bilaabay ma garanaysaa oo inuu maxay heday uu aniga intii yariduu joogay xataa aniga sidii hore may ahayn inuu si yar ilaaliyo aniga haddana si qof hinaasan iga shishikisiiyo waxyaala dee ninkii dabiiciga hore ma aha soo ma garanaysid markaasuu yidhi gabadhani markaasuu hotel gooni iska galayba wuuba iga tegayba anu abidey baan joogay isagona duhibs hotel iska galayba markaasuu yidhi ayuu aabiya la hadlay odayaashuu yidhi gabadhii way kadeeday ma garanaysaa ma garanayo way hinaasan tahay isma fahmayno marka kastoo ma adaa pressure weyn saaraysay oo maya waxa lixaan u saaray ma jirto isaga unbaa qorshe sataan ku leeyahay isaga unbaa qorshe iska samaystay telefoonaa loo soo diraa naagaa la hadla filin wuxuunbuu ii sameeyey uun soo ma garanaysid kasoo war maxaa jirana intaa bal ii sheegnaadoor waxaan jiraa waa maxay sidii hore ma tihide soo ma garanaysid waa maxay arrintani yaa markaa si qof cadhoonay si qof iska baxsanay ma garanaysaa uu iska dhigay hadduu joogaaqa kana dee ma joogaye waxbaan leeyahay arrin baa le wuu ordaya markiiba sax ma garanaysaa markaasuu maxaa yeday markaasuu hotel iska galay markuu hotel degay
ayaan maxay haday aabbahay u sheegay iyo adeerkay markaasaa ku ninkii saas sameeyey ilaa imika maxay haday telefoon wax war kama hayo markaas maxay haday ilaa anakaa u tegi haddaba ya markaasay ayay dhexgalay arrinta maxaa dhacay bay yidhaaheen ma garanaysaa isagu furitaan gabadhaanu waan furayaa waisma fahmayno ya dee markaa dee maxay haday aabihii saas ninkii wuxuu doonayaa furitaan oo wuxuu leeyay gabadhii isma fahmayno isma maxaa jira dee anu wax alle wax jira ma garanaya baan ku idhi isaga unbaa maxay haday markuu imika soo laabtay ma garanaysaa ninkii ma aha fursad maxay haday waqti ima siinaya aan la hadlo ma garanaysaa waxaan ma garanaya dee wuxuu maxay haday damacsan yahay dee ninkii furitaan buu damacsan yahay unbay gu yidhaaheen kaba ku suga furitaan hadday tahay ninkan waxbuu qarqarinayaaye waata ana aan xanuustay ma garanaysaa markaa bal hadday furitaan tahay waxbaa jira horta waan soo eegi anaa isi soo eegiye haddaan maxay day aan ay wax jirin waaba furitaanka waxba de aniga waxba soo ma garanaysid laba qof laakiin horta waan soo eegayaa isuga aniga war suga markaa dee ayaan maxay haday ayaan lacag yar u haystay ayaan dalka ka baxay laanu waa inaan markaa ma garanaysaa maxay haday waan diiday inaan isku baadho halkii ma garanaysaa dalkaan joogay inaan isku baadho waan diiday sabab ma garanaysaa dee halkaa ma garanaysaa xanuunkaniyu inkastoo aanu qof nerasa aan ahaa oon garan karo oo xataa dhakhtarada aan hoos ahaan iga qaada odhan karo ma og tahay ya laakiin waxaan is idhi maxay haday meel kale isku soo baadh oo dhulka afrikada isku soo baadh qalbigaaga adi saas ku sheegay dee may qalbiga ma aha laakiin eeg maxay haday dalka iyo dhakhtaradiina mas-uuliyad ma saari kartid oo qofkii ma qarin karaan ma og tahay hadday imika iga helaan cidi kuma qarin karto ma ogta waa mas-uuliyadde ma og tahay anigina dee maxay mashiin gacanta kuma haystaan tegi karo ma og tahay qofna qarin ma odhan karo ma og tahay oo dee mas-uuliyaddiisaga ma saari karo ma og tahay marka maxaan ku fikiray waxaan idhi dowlad afrikaana tago isku soo eeg soo ma garanaysid qof kasta mas-uuliyad lama saaro magaranaysaa markaasaan tegey maxay haday markaas soomaaliyaan tegey soomaaliyaan isku soo eegay ma garanaysaa markaasaa la ii sheegay soomaali intaas taas baartay soomaaliyan baaritaanki u tegey haye markaasay gabadhii anu dee waxaan u tegey ma garanaysaa dhakhtarkii baan ku idhi maxay haday waxaasoo dhan warqihii baan tusay arrimahaasaa jira baan ku idhi dhakhtarkii waan ku idhi cidna u sheeg kelidii baan u galay dhakhtarka ma og tahay cidna uma ankaxaysan ma og tahay waxaan ku idhi cidna in loo sheega ma doonay bal arrintan jirta yaa calaamadahaasoo dhan waa leeya ilaa imika ismaanu eegin markiina saasaanu dhiiga iskaga wada qaadnay markaasuu yidhi ma saasa arrintu haa wuxuu yidhi bas anigaa maxay haday ayaa arrintaa kaa bogsiino ku baadhi soo ma garanaysid marka isaguna maxay haday wuxuu yidhi haddaad halkan 2 goor baan ku baadhi halkan aan kugu eegi haddii kalena waxaan kuu geyni maxay haday dhakhtar kale ayaan kugu eegi labadaba saa kugu sheegi waayahay baan idhi halkiiba maxay haday ayay gabadh la ii geeyey gabadhii baa aduu igu tiri saas markaasay igu tiri maxay haday labaduna waan wada eegaynaa bay tiri labaduba natiijadu waxay soo baxdo ishaan ku wada eegaynaa may aduu eeg baan ku idhi may wada eegaynaa labadeenuba waayahay halkiiba maxay haday aan natiijadii wada eegnay markaas ayuu soo baxay inuu xanuunkaasi jiro soo ma garanaysid waa xaqiijis dee markaa anu ohinunbaa iga waxaa sameyn waan garan waayeba dhinaca le waxaan u kaco ma garanaysaa waan iska ooyo yacni siday noloshii u baaba'day iyo sidaan ma garanaysaa iyo ninkaasi wuxuu sameeyey iyo dee maxay haday shikigeygii wixii oo dhanoo marqul ataa caddaan noqday dee waxaa sameeyaan garan waaye wax ale dhinacaan u kaco iyo qof ale qof aan u sheego yaa markaasay dee dhakhtardi gu yidhaaheen horta bal yaa aawo ninkii bay igu yidhaaheen markaasaa ku yidhi dee isagii maxay haday wuxuu joogaa maxay haday duwe baan kaga imid basaas ahaa markaasay gu ninkan horta maxay haday ku siray bay igu yidhaaheen soo ma garanaysid marka adiguna imika tale maliya ninkan ha laga daba tago ninkan heerkiinu ha ka daba tago soo ma garanaysid dee aniguna waxaan ku qaban karna ma jira hadduu halkan joogo dee waxun baan ka qaban lahayn soo ma garanaysid marka wax kuma qaban dee haye markaa bal ninkaa heerkiina u sheego si loo dee maxay haday looga daba tegi kara si faloweyga hala qabto waa garta haye dee dhakhtarkii saasaan ku kala tegnay ma og tahay waaye adna iska noqo bay yidhaaheen ma garanaysaa laakiin dee talaas iyagu isiiyeen
anu isagii baan la hadlo oon la hadlay sax markaasuu yidhi de ima oga goormaan tegay leene waan ka dhuuntay isaga hoteelkiiba ku jiraayo ima oga mar aliya markaan duulay iyo mar aliya markaan xaafadii ka tegey Dubai u joogtaadi dee ha ayuu og yahay waan kala soo hadlay markaasaan ku yidhi halkaasaan joogaa markaasuu halkaa maxaad ka samaynaysaa waxaan ka samaynaya adba waad garanaysaaye halkaasaan joogaaye ma garanaysaa markaasuu gu yidhi maxaa yeelay walaalkay la hadal waa heer gaalkacyo ma og tahay hoteelna gaalkacyo ku leeyahay ninkaba ha markaas ma ogeen laakiin ya markaa maan ogeyn mar dambe ayaan maxaa ayaan ogaaday inuu lacag leeyahay hotel leeyahay waxa leeyahay soo ma garanaysid markii ugu horreysay ku leeyahay anigu waan yaabanaaba laba xaas siduu maxay ahaday uu kiyo lacag yar qaata siduu maxay ahaday uu isku wadayaa markaasuu yidhi maxay ahaday ordo maxay xaggaa tago walaalo la hadal ma garanaysaa waranu cidna lama hadlay cidna uma tegayo ma garanaysaa adaan kuu soo laabanaya adiga soo ma garanaysid halkaasaan ayaan kusoo socdaa ma u sheegtay marka uma sheegin laakiin isaguu fahmo uu gartay dee haye mar haddaa halkaa soomaaliya joogo soomaaliya maxaad ka doontay buu yidhi maxaad ka doontay weli marka furiinkii muu dhacay mise ma dhicin ya may furiinki de waa intuuna dhicin baa anu aan issoo eegay og tahay anu wuxuu weli igu ogaya inaan la joogo duway buu igu ogyahayba magaranaysaa markaasaan ayaan maxaa ayaan u sheegay de adeerkay wali ka daba teg haddaba aniga ninkii sidaasuu sameeyey adeerkaagaa wacday adeerkay baan wacay iyo walaalkay waa u sheegtay labadaasaan u sheegay laakiin hooyo waan ka qariyey uma sheegin maxaa jiro waxaan ku yidhi xanuun yaro beeraa jiro waxa ma jiraan de naxdinta way ku tegi lahayd bayadu ya waxa ma jiraan baa ku idhi waxa yar xanuun yaro beeraa iska jiro wax ma jiraan baa ku idhi iyada beer xanuunka maxaa hepatitis-ka jiraan ku idhi kaasaaba ka daran ba ya dee maya ka dar isagu may horta de dadku waxay u yaqaanaan ma garanaysaa nooc baa ka daran noocyaal hepatitis-ku ka daran yahay laakiin inta badan ma garanaysaa noocana maxaa kana ugu halisa garanaysaa oo de may labada haddii hepatitis B oo kale uu ka daran yahay AIDS laakiin dadka ma oga ha soo ma garanaysaa laakiin de ma garanaysaa qofkii waxaa ku xiran ma garanaysaa sharcigiisa iyo noloshiisa iyo dhulku ku noolaayo wuxuu ku noolaa marka anu ka mas-uula oo aqalkii iyo masruufkii wixii oo dhan inantiiba saa haddii lagaa yidhaaho de waaba hooyo malaria qabta haddii lagu dhahay kaa nexe wax kale iska daadi waxba maa sheegin xanuun yaroo hepatitis lagu sheeg wax yar weeyaan baan ku idhi ma aftiga waan ka wada qariyay heerka intaa dhinaca waan ka wada qariyay iyagaan ku idhi ka daba tega oo sheeg markaas adeerkaaga iyo walaalka markaasuu adeerkayna kaalayo halkanoo bal anaka halkan arrinta ku markaasaan ku idhi anu haddaan imaado maxay nii samayn baan ku idhi anigu taa laygu sheegay sagii baa la isatiina sagii qabta sagii wayna ag joogaaye maya aduu noo kaalay almuhim halkii baan imid ma og tahay soo ma garanaysid markaan maxay ahaday Dubai ku soo laabtay ayuu maxay ahaday ayaan isaga u yeedhay oon ku idhi dee xaafadii ma jooga hoteelkii buu jooga hoteelkii baan ugu tegey waan doodoonay hoteelkii ka baxsaday soo ma garanaysid hoteelkii uu ka tegey markii la yidhi yadii baa joogto gabadhii baa ku doodoonaysa horta xaafad yar buu geli jiro islaan yar ayuu geli jiray xaafadii baan tegey dee anu hoteelka ma garanay buu degayey xaafadii baan tegey gabadh joogtaan ku weynaa aaway ya kaas way soo dhaweeyeen goor dhaweyd buu joogay maxay buu jooga waa loo sheega baan u malaynayaa wuu diiday inuu yimaadaba telefoonkiina iga qaban waaye ana de halkana ku sugaya baan idhi halkana u jooga ma garanaysaa aduu mar dambe ayuu maxay heeday ma garanaysaa ayuu yimid markaasaan ku yidhi haddaba ina mari ya markaasaan dee halkii maxay heeday oo hirun baa ana iga timid wax alli waxaanse ninka waxaan ku idhaaho si alliya sidaan u sameeyo waan garan waayey dhinacaan ninkaa waan garan waayey maxaad ka doontay ma soo garatay waxaad doonaysay ma garatay imika soo ma garanaysid ma nasatay imika haydaba baabaadhin baan ku idhi haydaba baabaadhaysa asaa ku yidhi waagi buu odhan jiray haydaba baadhin sidaa ayuu kula noolow yaa waxba garanay saasaa fiican buu haddaad i garatid waxaan ahay soo ma garanaysid raali ma noqon sidaa ila noolaatid saasuu odhan jiray intuu de maxaa yidhi war ordayey ayuu odhan jiray anuu de ina yar baan waxaan maskaxdaydu caqligaygu ma gaarsanaba ma og tahay haddaan daba gurayo imika ma nasatay ma garatay waxaa raadinaysa ma garatay muxuu ka wadaa marka yaa waxaa raadinaysa ma ogyahay dee maya de isagu wuxuu yani xanuunkii waad soo garatay buu ujeedaa soo magaysa laakiin aniga maskaxdaydu inaan isaga hadalkiisa raaraaca maahe maxaad ku samaysay maxaad samaysan baa niyadida gashay maxaad xilligan aad samayni yaa
unbaa gashay waan iska ooya waan ooyaa oohin unbaa timid laakiin anigu waxaan is idhi ma garanaysaa si lagula taliyey ninkan ma garanaysaa adigii waa kan maxaa yeday booliiska uma tegi karto uma sheegi karto dee ma odhan kartid ma og tahay wax alle waxaan sameeyaan garan waaye dhinaca u kaco ayaan garan waaye garanaysaa markaa dee heerkan u sheegay markaasaa maxay heday uu yidhi haddaba waan kaa daba iman ordo xaafadiisii teg xaafadda ordo teg waan kaa daba imane ha markaasuu baasaboorkiisii iyo ma garanaysaa iyo shandadiisii uu yidhi oroo sii qaad ha markaa ninkan wuxuu sameeyey ilan baasaboorkan uu dalbaday dharaata arrinta inuu dhameeyuu doonayaaba markaa baasaboorkan uu isuunay ku soo galay waa baasaboor ka soo qaatay booliisku yidhi dee maxaa yeday kaygii baa iga halaabo wuxuu yidhi kaygii cumrada beljiikan u diro cumrada ayaa laygu soo dhufanayaa markaa mid kaluu soo qaatay waa nin dee ugu soo talagalaba inuu doorkan siduu baxsadaba u baxsado soo ma garanaysid markaasuu baasaboorkii wixii alaabtii dhan ii soo wada dhiibay uu yidhi orada waan degdeg waan kaa daba imanayaa ee soco ya waayahay halkan waxaan joogayaa maxaa yeday alaab yar dukaan baa laysoo wacay waxbaa laysoo wacay imikaasaa kaa daba imanaya anigu de inuu baxsano isna adeerayaan u sheego dee gacantaa lagu hayaababan islahaa soo ma garanaysid ya xataa markaan doodoonaya dee aan xaafadda dooni laha hoteelkiisaan doodoonaya adeerkay baa la socday moog tahay adeerkay nin kalu wato marka ragganaaba kaaga filan baanu islahaa ninkan ma garanaysaa adeerkaan u sheegay markaasuu maxay ahaday ayaan anigu maxaa yeday dib xaafaddii ugu soo laabtay ma garanaysaa maca alaabtiisii maca wixiisii aan ugu soo laabtay isagana halkuu ka iman lahaa unbuu yidhi gaalkacayaa laigala soo hadlayo ma garanaysaa walaalihi ila soo hadlayo ma garanaysaa alaab yar baan geynaa waan imani markii baa igu dambaysa aniga ilaa hadda waqtigaas waxay ahayd 2009 ilaa hadda isma arkin ilaa hadda wiig baan ku maqnaanayaa buu yidhi maxay gaalkacayo wiigii wuu ka batay markaasaa naagtii aanan u tegey dee tii maxaa yeday shuweeriye noo keentay taas waa muhiim waay horta taas sheeg like ayada qofkay ku barto moogtahay dee haa iyadii baan u tegay iyadii baan u sheegan ku yidhi waa maxay ninkii waa kan maxaa yeday waan imanayaa buu yidhi ma imanayana maxaa jira ya markaasaa qisadii u sheegay on ku yidhi ninkii saasuu yahay saasaa dhacday waxay iminkaan wici maxaa yeday walaalkii baan wici maxay baan wici dadkii bay aduu ayay wacday ma ogtahay walaha hadashay ma garanaysaa way la soo hadleen laakiin waxa waxay sameeyeen ma jiraan isagana wuxuu yidhi maxay heeday markaasaan ku yidhi haye uma imansid soo maaha dee haye kaasuu yidhi maxay heeday maruma imanay ma soo laabanayo maxay heeday waan ku furina furitaanka maxay ku furi markaad xanuunkaga qabadsiisay ayaad iminka ay furi soo marka kaale maan haddaad halkan isku furaynaayo furitaan soo ma doonaysid kaale halkan isku furaynaayo ya halkan isku ma anu imika soo baadhay haddaan doonay soo baadhay shandadiisii wixiisuun baan baadho laba quuroodoo laba maxaa heeday caagadoodoo dawo ah oo xanuunka loo qaato ayuu iga tegey shandadiisii baan markaan baarbaaday ayaan baasaboorka iyo labadaa quuroodee dawada ah markaasaan dawadii internetka aan geliyey waaba last station kuwa loola tacaamulaba waa stage ugu dambeeya ku jiraba kuwa loo siiyaba dee dhulkabay la wareegaba dhulkabay la gariirba last stage hadduuba haye dee markaa niyaddeeda maxaaban geliya anu ma garanaysaa walaalihii waan u sheegay cid waxbay may sheegin markaana waktiguu ila eegtay wakti xun bay ahayd moogtahay oo maxay ahaday shaqadii maxay ahaday dhakhtarka ma garanaysaa shirkada ay qaateen una laga wareejinaya shaqadii ba ahayd moogtahay yaa heerkiina ka mas-uul baan ahay soo ma garanaysid iqaam haddaan sharci jadiida doodoonan lahaana dee waa kana xanuunka isku soo ogaaday soo ma garanaysid shaqo kale waan doodoonan lahaa waan fadhiya wata isku soo ogaaday shaqadii horena waxaa la leeyahay maxaa yeeday sharcigi waa laga kaskaraynayaa keen isagina waa kan baxsaday wakti fiican buu isla helay soo ma garanaysid waxaa waxaa sameeyaan garan waayedee soo ma garanaysid marka maxaa yeeday walaalna uu soo hadla wuxuu yidhi hooyo u sheegay uu yidhi ninku waxaasuu qabaayo waxaasuu qabadsiiyey gabadha markaas hooyaalkii noogu dhacday yaduna soo ma garanaysid yaa ay tiri maxaa yeeday maxaad igu sheegi weydeen maxaad iga qarisay ninka anigoo maxaa yeeday dila maayo oy iska daa maxaad subxaanallah ninkani wuxuu sameynay wuu u kasay ma garanaysaa
laakiin in laga daba tago de wuxuu ninkan raggun baa ka daba tegi kara garanaysaa markaa dee arrintu waqti waxaa iska dhacday ma garanaysaa masruufkii iyo wixiyo shaqadii oon anigu ka tego shaqo aanan haynin waxaas dadkii uma sheego xataa maxay tolkii waxayna waxay yidhahdeen gabadha jidhkayga fayrus baa galay baa leeyahay waa maxay waati xanuunsatay guurkii dabadeeye xanuunkana xanuunsatay waa maxay ya ay leeyihiin markaasay ii sheegeen oo yidhaaheen xataa cishadii muu wadan ninku ma garanaysaa meherkii kaasoo ma imkaad ii sheegaysa cishadii meherka muu wadan walaalihii ma imkaa ii sheegaysiin intii yarada walaalihii nambaryaashoodan ka qoqortay intii yarada isoo maxay wacwacayneed dee arrintu jiray ayaa nambaroodii wuxuu ka wada qoqortay ma ogtahay soo ma garanaysid mid xawaalad amal joogo dee bashiir la yidhaa iyo midkan yaasiin la yidhaa ee jooga maxay ahayd halkan dadkaasay ahaayeen waa hoteelkan hooyadiina waan la hadlay hooyadii waxaa tiri hooyadiis hana sheegan un bay tiri aday ku leedahay kaban bay hooyo intay la hadashan bay tiri oo naagtaad leedahay hana sheeganin naagtaad markay caruusigala soo hadlaysa uur maad leedahay markay xanuunsanaysa maaha unbay tiri eed lahayd naagtu maxay ma uur bay leedahay ma waxbay leedahay imikaad leedahay hana sheeganin yaa seed u hadlaysaa unbay tiri inankiinu saasuu yahay maxaa haye ma garanaysaa markaasay dee arrintii sidaa markaasaa maxaaday uu taladii ugu yidhahay horta bal imika adigu uu kugu cusub yahay iska baxo orada yamanta iska tago halkaa sheekh baa lagu sheegay oday zindaan la yidhaho daweeya kaa u teg baa la bal adigu isku soo eeg adaa lagu dhahay hay isaga iska daa isagu arrintiisu ha noo dambayso laakiin adigu kugu cusub yahay horta ilaahay adiga inuu magaraysaa oo caafimaadkaasi horta xaggaa teg adigu dee sidii baan xaggii aanu tegey magaraysa hayaban isagiiba waa la iska daayay inuu iska socdo adduunka magaraysa iska mushaaxo uu kolba habla yaroo naqnaqan magaraysa iska guurguursado ayuu filinkiisiba isagu noqday soo ma garanaysid heerkoogiina kolba meeshay joogaanee naagta halkanay joogtaa magaraysaa oo xanibaad uu yidha xaniba soo ma garanaysid dhibaato uu ii geysan adduunka yani anuu iska daaba yaa xanuunka horta rabbalcaalamiin baa keena ma ogtahay yaa laakiin dhibaatadiisaba kadana warqad bilaa furitaana bilaa biil bilaa waxba bilaa xaq bilaa xuquuq iyo dhiigeygii dee anuu warqad furitaana kamaan ninkii waan ku furidaasa igu dambeysay imika mar ali markaan dacwad kicinayo qof u sheegayaan ii sheegin waan ku tusi email buu isoo diraa ii waran telefoonkaagaan doonayaa wuu igu jaastaynayaaba muxuu kaa rabaa hadda yaa telefoonkaagaan doonaya mar ali markuu kale dacwad baan kicinayaa uu maqlo yaa emailka wuu soo gelaya oo ku leeyahay yaa maxaa telefoonkaagaa doonayaa markaa ninkaas waa nin dee xaalkayga ogba somaa ninkaas waa nin warkayga waxayga ogba hayo okay so asaga hadda dad kalu guursadan maqashay oo qof weli magaala ku jiro yani cudurka faafinaya ma yahay mise yaa de isagu ku jira magaalada ma ogtahay meel kastuu tegaya hotel kastuu seexanaya ninkaasi bilaa naag ma joogaya ma ogtahay etoobiyuu tegayaa etoobiyuu ka guursanayaa uu ka guursaday soo ma garanaysid haye maxaa haday soomaaliya uu ka guursaday markii wuxuuba lahaaba horta ninkaa horta subxaana xaasidnimadiisa haysta wuxuu yidhi aabbahaa ciyaal badan buu leeyahay mid hadday wax ka noqoto wuxuu noqoni maayo saasuu ku yidhi hadalada anuu afkiisa ka hayo okay meeqaa sanaa jirtay markaa guursanaysa 4 jir markaa meeqaa jirtay 4 markaas guursanay 34 daanu wataan ku yidhi heerkaygan maxay magaraysa hablahayaga ayaan soo korinayay heerkan ka mas-uulaha haddana waxaa jirtaa imika waa imisaba waxa weeyaanba maxay kotonkii baan ku dhowahay marka adi mustaqbal la-aan ku dhigay soo maa qof wax kaaga qabtayna male damay awooddiisii buu isticmaalay awooddiisii lacag ahaan baasabor ahaan ninka xasan cali maxamuud saylaan baa la yidhaa hotel heer saylaan weeyaan walaalkii waan u tegay imika waa dhaweyd ma garanaysaa wuxuu yidhi arrintaas waa arrin uu guursaday ninkii buu yidhi horta waa guursaday ninkii wuu guursaday weliba iska daa guurkaasoo kiiniyadanu ku qabaa yabantu ku qabaa ninkan uu guur badan yahay intuu qaba maaha in kale waxaa kasii daran uu habla yaroo uu iska sii guursanayaba magaranaysaa marka wuxuu yidhi maxay haday arrintaas waa arrin adiyo odaygaaga aad ka hadlaysiin waan u tegey maxay waxay 2019 ayaan tegey ma ogtahay hoteelkiis gaalkacayo adaa gaalkacay tegay anaa tegey hoteelkii askala ninkaaga yaa hoteelkii baan tegey soo ma garaysid islaantii hooyadii aan doonayay inaan maxay haday aan arko walaalkii baan arkay kii yaasiin la odhanayay ma garanaysaa dee kiina wuxuu askarun buu ii dalbaday kan buu yidhi arrintan waa arrin iyada iyo ninkeyga iyo odageyga ee odaygii baan u sheegayaa arrinta wuu ila soo hadlay markuu soo hadlo baan ku yidhi waryaa ma imanaysaa halkii baa igu dambeysay
haye wala maya waan imanaya wala ma imanayo haye okay marka magaciisa waxa la tiri xasan cali maxamuud saylaan okay ana waa maal qabate mar damba aanu gartay xataa hoteelka inuu leeyahay gaalkacyo ku leeyahay hoteelka heer saylaan haye sawirkiisa iyo waxa soo haysa Soomaa sawirkiisa waan hayaa de warqadii waan ku sawiranahay ba warqadii caafimaadkan iska soo wada qaadnay soo ma garanaysid warqadii meherkayga wixii oo dhan okay wiliga ma weydiisay maxaa ka damacsaneed adoo waxaas qabo maxaa iga soo doontaani maxaa rabtay de qofkii markuu kula hadlaya ayaad weydiinay ma garanaysaa qof kuu joogsanayno maxaa yaday mar aliya markuu gartay inaad maxaa yaday meel halis aad ka taabsanaysid amba aad maxaa yaday aad meel yar dacwad yar aad kicinaysid amba wax yar aad kicinaysid unbuu email yar soo dirayaa si warkayga loo geynayo unbuu email soo intaa kale shaqaygu male magaraysaa mar aliya markuu garto inaan maxaa yaday aan arrintii hadal hayo magaraysaa arrintiisa inaan hadal hayo markuu garto unbuu hay ku soo leeyahay yaa unbuu dee waa nin maxaa ka galay waa nin kuu awood sheeganaya ileene unbuu haya ii waran telefoonkaagaan doonayaa aragti goortay isku haydimaysa adii asaga yaa aragti xasuude 2009 soo asaga xataa waa raadisay gaalkacyaa tagtay weli isma arkin wilis ma arag familigiisa daa weydiisin waxa lagu leeyahay hanoo sheegin sheekadaas ha hadda adiga haddii asaga yani hortaada fadhin lahaa maxaa ku dhihi lahayd yaa de maxaa ku dhumaay inaan arkaba ma doonayay ninka sidaa sameeyey anu niyadayda waxaaban geliyey ninkaas sidaa sameeyey ee u kasay ee marna ka soo laaban ee islaamnimadu sheeganaya kaga soo laaban ee marna waa xataa magarsa gabadheedu waa Soomaaliyeed oo mar baad meel isku arki doontay ay odhan ee xataa odhan dee yacni wax alle maxaa yaa inaan cisho quraata xadhig la ii geliyo xabis dacwadde ma garanaysa inaan dacweeyo oon ku najaxo ninkaa xabiskiyo ku jiraan arko yaa laanno laa xaqii bini aadanka ayuu meel kasoo magaranaysa kasoo galay walaa xaqii islaamka labadiiba uu ku ciyaaray labada waxa weeyaan lacag baan haystaa baasaboor baan haystaa dad baa iga dambeeya aduu maxaa tahay markaa ninkaa anigu yaa waxaaban qanaacad baaban anu inaanan argiisa ma dooni kayo magaranaysaa maxkamadan horkeena maahe inaan maxkamad niyaddeedu inaan maxkamad horkeena un baan doonayaa wuxuu waxaa u sameeyey iyo dembigaasoo dhane intaa sanadoodoo dhan uu odhan maxaa adigii waa kan hadduu ilaa adigii ma doonaysid yaa bal ha iska guursato dadkaa kaloo nasiib kale ilaahayaa isagoona xataa waxaa la yidhi naagtiisii hore waxaa isla tegay ilaa jarmalka isagaa wax ma dhalayaa la yidhi run ay ahayd sheekadaas haa run bay ahayd haa mar dambaan gartay markaan guri dambe ayaa gartay in ilaa jarmalka tagaw la yidhi isagu haye ma dhalayo isaga iyadina nin kale guursatay baa lagu yidhi way isfureen cudurkina may qabtaa yaa way qabtaa baa lagu yidhi iyada de waxaa ka sheekayna dad isaga garanayo xanuun kale nooloo naagu la saaxiib ahaa yaa markaa markii dambe waxaa ka taxday kale inuu xataa nin ma garanaysaa siire maxaa diinta wuu dee qur-aanka wuu xafidsan yahay laakiin nin balwad ma garanaysaa balwadda maxay cabitaanka iyo waxaa ku baas ayaan gartay markii dambe inuu yahay haye okay yani khamru markii dambe aan wareystay okay haye adiga hadda cudurka waa la nooshahay yaa cudurka waa la nooshahay hadda adiga yaa intaasan oo dhanba 15 sano waa la nooshahay walaa dhaqaalo fiican sidee marka walaa si u nooshahay de horta magaraysa alxamdulilah rabbilcaalamiin mar haddaan anu gacanteyda suuq aan ka soo qaadin oo wax badan aan ka soo qaadin horta ilaahay rabbalcaalamiin oo qof magaraysa aad maxaa yaday balwad lahayn aad ahayn ilaahay subxaana allah yani qarad inaad kusoo qaadina ka wadaa ya haa ilaahay kuu sakhiraya ma ogtahay soo ma garanaysid alxamdulilah rabbilcaalamiin ma garanaysaa inkastoo dee duruufo afrika iska xun tahay ya laakiin haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin ninkaa mustaqbalkay ku ciyaareen shaqadaydiiyo waxay ku ciyaareen caadi maaha ya qof mutacalima maxaa u awood sheegtay ma garanaysaa inuu maxaa baasaboor yar uu adduunka ku dhaafayo ma garanaysaa saanu saamaxay wasi cajiib adiga markaad dib u fikirtid oo kale mis dhahdaa yani qadaraa kugu dhacay ma is leedahay mise kastoo markii laisbaaraya oo kale kastoo waa fududaatay waa ka xaqiijin lahayd warqadaas ninkan waday iyo waxaan isdabamarayo oo kale marmar mas dhahdaa horta ma garanaysaa horta anigu intaan ku dadaali karay waan dadaalay watamaan dee horta ilaahayna subxaana allah dee eeg qadar kugu dhacaa oo ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa qadar kugu dhacay moogtahay laakiin maxaa kasoo horeeya qof baa u sabab ahaa kiyoo isgaranaya ayuu ilaahay 3 fursadood hordhigay
waa kan maxay markii dhiiga ku noqon la yiri xataa hadduu maxay qaldamo i jeclaadayba bal oo aan soo jiitay fursadu ka noqon karaa ayaa jiray ma ogtahay markii aan idhi fasax ma haysto iska noqon lahaa ninkii wuu is ogyahay ma ogtahay yaa waayahay maydaan waan ku idhiba markuu wiiga maqnaabuu dib soo noqdo la yidhi heerkii markaa ninkan waa nin wax u kasay ma ogtahay inuu sameeyo wuu u kasay inuu saa u baxsadana soo ma garanaysid marka maxay ahayd xataa fursaddaas waa kii maxay markii hoteelkaan ku yidhi waar iska noqo haddaanad lacag hayn marka kaa anigu dee inaan anigu maxay saamaxaad ma karayo anigoo horta ninka maxkamad hor keena ma wuxuu saa u sameeyey yaa hablo badan oo qayrka inuu ku sameeyeyba wax u horeysa maaha ninkan qofka markuu u horeyso ma garanaysaa uu naxaa laakiin ninkan nin naxdin lama haba asagoo qofkii ugu talagalay waa qof ku talagal u sameeya waa qof talagal marka adiga hadda wax shalayto oo qalad adiga sameysay qalbiga ku jira ma aha soo ma deme anu horta fursada ilaahay uu keenay ma ogta way siiyey laakiin anna waan aaminay qofka hadduu ku yidhi quraan baan xaafidahay ma garanaysaa heerkii buu ka yimid waa la soo wareystay khibradna umaan lahayn inuu bulshada soomaalida kuwa dadkaasi ku jiraan yaa marka anu qof waxaas kaa waxba garanayn dee ma ogtahay marka isma idhaaba maxay adu qalad baad gashay sax badanaa dadka horta waxaas dhan qadar waaye wax dhaco waaye alxamdulilah marmar dadka laakiin waxaasoo kale markii laga helo kale adi waxaad tiri marka ugu horreysay waa ooyey ashoogaa tiri soo maa dada waxaa laga yaabaa in nolosha dhan nacaan oo hataa yani daawo hataa qaadanin adiga yani markii dambe see u fikirtay inaad daawo qaadataa soo maadi yaa dawada imika goortee bilowday aad tiri waxaan waa la noolaan kartaa oo qasama inaad dhaqsi dhimatid horta anuunka xanuun ahaan xanuunka maan fikriba ma ogtahay anuu xanuunka alxamdulilah mar haddii dee wixii igu dhacay ma garanaysaa inaan iskadeedo oon ma garanaysaa kamaama waxa maskaxdeedaba ma garanaysaa wixii igu dhacay waa alxamdulilah rabbilcaalamiin ma garanaysaa waxana wuxuu leeyahay ma garanaysaa dariiqad buu leeyahay wuxuu leeyahay maxay ma garanaysaa process loo raacuu leeyahay dawo la qaato wax la qaato leeyahay kamaama fikrinba anu qofkii wax kugu sameeyey isaa kuu galay ataag umba niyadeeda makarisa aan geliyey laakiin xanuunkan alxamdulilah waa iska qofku dee dadku way iskaga noolaan karaan ma ogtahay kii balwad lahayn amba kii dee uu ilaahay ku cadaabayana uu ku cadaaba ma ogtahay suuqii waxaa ka keenay dee inta badan ma garanaysaa isagu is og dee kaa xaali nafsiyaaba ku dhacaysaba laakiin maanta anigu dembi aan sida naag shaqaysanaysaan ahay naag tacliinteeda weliba meel sare ka gaadha baan ahaa oo dee ilaa shift incharge gaadho woorkao dhan haynaysay oo kasii laga siiyaa mustaqbal fiicanay ma garanaysaa ayuu isagu sabab u noqday in waxaasoo dhan uu burburiyo iminkana isoo gaadha uu yidhaa wakaas haddaad isoo qaban kartid uu weliba kaga sii daru walaa warqad furitaana walaa maxay haday heerkuu ka garbaxo walaalihiina isaa ku taageerayaan heerkooga dhan saa ay ku taageersan yihiin ya laakiin sheekadan mar hore dhacday sanadkii ugu horreysay isqabteena dhacda soo maha inuu baxsadan markaasay bilaabatay soo maha ubad maa leeda wax ma dhalin soo maha de isaga wax ma dhalaba la yiri wax ma dhalayaba adiga ninkan unbaa guursatay welina furiinka ma haya leeda soo qof kale iyo ma guursanin soo maha may haasho guurkiiga horeeyo ha dadka cudurkan qabo ilmo way dhali karaan soo maha weliba ilmo caafimaad qaba way dhali karaan marka ma ka fikirtay dee qofkan qofku haysan kara ma ahan diinta xataa haddii la fiiriyo dee qofku qabo ku biilinaya ma ahan adiga naftaada maxaa mar hore dee khasamaan inuu waa ku furo ku dhaho warqad ku siiyo adiga naftaada intaa fikirtay ma istiri ninkan sharciga aadaa waa fasaqa si kale inuu ilmo inaad dhashid oo ma ka fikirtay horta sharcigu muu yeelayaa sharciga inaan weydiino weeyaan sharciga qofkiiyo maanta nool dee qofkaas qof dee markii horeba xaasidnimo kuu guursaday oo inuu wax kugu talaal kuu guursaday oo inuu ku dhaqda rabin oo 100 mar ku dhahay waa furaa maya horta qofka eeg qofkii sidaasa in horta isaga uu yimaado ku fura maaha maxay sida sharcigaas ku furtiin ya mise in adna warqad fasakhaad qaadatidood maxay aday adnaad hoosahays ka furtidba maxaa lisku qabaa ya maxaa lisku qabaa qofka soo mas-uulka ma ahayn wixii meeshii dil baaba yimid ma ogtahay meesha waxaaba yimid ma garanaysaa iyo arrinka weyn baaba timid ma ogtahay khiyaanadaba meeshii timid ma ogtahay markaas ya adiguna inaad sidii aad samaysid oo warqad fasakhaad aad qaadatood ma garanaysaa sharciga adnaad dhinac kale noloshaada ka raacdid ma garanaysaa anigu waa ila adag tahay say kula adagtahay
walaagto ninkii haddii maxay aan doonaya ma garanaysaa adeed waxaa rabtaa qof oo leeyahay naftaadaba halaag geliyay ina xarigaaga iska haysta ma ku faraxsan inaa haysta maaha soo ma garanaysid laakiin ma garanaysaa horta anu waa ma jeclaa dee nolosha nolol ka fiican waan heli lahaa laga yaabaa ma og tahay laakiin dee ninkii xariga isagaa dheereeyey ma og tahay isagaa baxsaday magaraysaa aniguna inaan warqad furitaana qaato oon aayar bilaa xaq iyo xuquuq ma garanaysaa taas waa iswa sukari waaye sharcigana maan weydiinba ninka sidaa islaa maxaa laga yeelayaa inuu ku qabo ma aaminsan tahay daadi mar labaad ku weydiin dee anuu eeg qabitaan ma ahayd dee heedhe maxaa yeelay inaan xanibanahay uun oo warqad furitaan adiga ma laga yaabo inaad isxanibto naftaada isto uma malaynayo way tahay may uma malaynayo waay anaa kuu sheegi sabab way xariga u haysta horta anaa kuu sheegi sabab ninkani muxuu igu guursaday inaan nima igu guursaday ma og tahay soo ma garanaysid yaa markuu inama igu guursaday ma garanaysaa meel kasta haddaan ka ashkatoodo ma garanaysaa ninkii waa la isoo qabanayaa haddaan anuu eeg qof caadiya haddaa tahay anuu kuuri lahaa fasakhaad warqad fasakhaada samee oo dee khalaas caadi baad iska tahay ma ogtahay isaga biil kuma sixo kuma siiyo laakiin haddaadna dhibtii ilaa qofka kaleed guursanaysa qof saliima maaha waa qof xanuunsanaya ma ogtahay soo ma garanaysid marka adu waa isbaabiinaysaa adaa sii baabiini soo ma garanaysa oo ninkii halkaad ka dacweynayada wax ayaad ayaduguna xanuun kale aad isku sii ridi xanuun kale saa suuri yacni ilmaha loo sameynaa ma wax guurkasoo ilmo ma ahayn dema ilmaha waxaa kasoo horeeya ma garanaysaa waxaan waa dad xanuunsanaya ma ogtahay yacni cudura kugu sii kordhaya isaguna 10 meelood buu ka keenay qofkii ya soo ma garanaysid waa ku fahmi karaa qofkii inaad la joogtid haddaad la joogi kari weydid si fiican sharciga markaa uga baxdid ma garanaysaa laakiin anigu ninkan inaan dacweeyaan doonayaa marka dacwadiisaan doonayaa ma garanaysaa qof kale iskuma xidhi karo ma ogta ugu dambeyn maxaa soo jeedin lahayd ya يعني maxaa codsan lahayd maybe wax aan ku weydiinin oo kale waxaan ku darsan lahayd ma jiro waxaan doonay wallahi walaalahayga Soomaaliga inay igu saacidaan ma garanaysaa hadda ummadda muslimiinta saa ninka maxkamadu hor keeno intaa waan ku soo daalay isaguna xooggiisa uu isticmaali karo garanaysaa siduu maxay ahaday uu arrintan u qariyo laakiin weli anu waan noolahay ilaa imika ka waan noolahay sax ma garanaysid marka ilaahay inuu tusani kaasoo ma garanaysaa xabiska ku jira oo hablo badan buu galaafanayaa